waxaan ku baaqayaa madaxweyne xasanow anaf sanaf barnaamijkan dhulka iska dhig wixii soconaya dadka loo sheega Soomaali kugusan wax dhaamaa ma jiro cid ka adkaad Soomaali ma jirta intii fiyoorihii la gaday fiyooraha soo lama aqoon carwadii yaa diyaaradaha lagu daabulo kaambooni intaan tagno niman geesiyaal waxay dhahaan intaan tagnaa soo qabanaynaayoo waxaynayna 1500 oo wiil oo Soomaali damage ka dhacay gacmaha la taagay cawrada nooga badnay maxay ciidan Soomaaliyeed waliba daroono intii meelii ugu istiraatiijiyada ka baxeen ciidankii aanu daray daroono loo isticmaalo wadaroota shabaabka loo leeyahay maanta ay balcad korkeeda la taagan tahay ma aan la duqeynaynin kaambooni lagu soo duqeynay ciidan manaraani jooga macnaheedu waa waxa hadda laga hadlayaa shacab la cuna qabatay garoomo la xilaya waxa la leeyahay hadana reegada still ma dhamaanin shalay kaambooni tii waa lagu fashilmay waa in shift kala aan sameeyno gada isku dayno inaan waxba ka sameyn reebaad aan isku dirno reega baari aan isku dirayna doolar aan sidan yeelno balaxa wax la isku fadhiyo laakiin waxa ilaahay mahadiya dadku aad u aqligoodu soo jeeda odayga Allah hada shay iyo qof waliba wuxuu leeyahay kaalay meena waa la nahay moodaya axibada meesha ku haray waxay xusuusinayaan 1976 xisbiga antiga kacanka Soomaaliya dawladda kacanka dawlad xoog leh oo xisbiga markii la aasay golay sare kacanka uu jiro yaa waxa galay madaxweynihii iyo ku-xigeenadii iyo taliyaashii ciidanka iyo wasiiradii iyo saraakiishii kulli golay dhexe xisbiga antiga kacanka Soomaaliyeed baa laga waa awood dawladeed oo wadanka gacanta ku haysa oo powerful bal xisbiga antiga kacanka Soomaaliyeed maanta la dhisay xagee gacanta ku haya ya xisbiga maanta gudoomiyihiisa iyo musharaxiisa la isku wada haysto ee la leeyahay ma adaa joogi ana joogi loo joojinayo la qaybsanayo la waxaynayo ay xisbi dawladnimada maanta xisbiga loo sameysanayo ee la leeyahay xisbigaas aan soo nimaano hadda durbaanka la fiiri 60s lixdamaadkii iyo toddobaataadkii markii uu kacaanadu dhici jireen Afrika waa laga soo gudbay hadda wiilasha hadda joogi iyo kulli wasiiradii kulli waa qurba joog waa niman Yurub iyo Mareykan iyo Kenya xataa lama socdaan xataa shuuciyadii iyo wixii jiri jiray lama socdaan ma garanayaan xataa luqadda lagu hadlayo maanta xisbiga inta kacanka Soomaaliyeed oo asaasaya xisbi la mid ah waxba oo la hawla lahu wala quwwa wax gacanta ku haya ay jireen soo ma garanayaan shacabku waxa yaala iyo sida tahay xaaladda ay ku jiraan sida waxaan ku baaqayaa madaxweyne xasanow anaf sanaf barnaamijkan dhulka iska dhig wixii soconaya dadka loo sheega Soomaali kugusan wax dhaamaa ma jiro cid ka adkaad Soomaali ma jirta war qabiil ka adkaad wali ma qashay ya inta hadda Soomaali dagaasku ay ku jirta cid ka adkaatay baabi'isay oo la waayay marka taa ma jirta intimis wada hadal isugu yimaado wax NCC la yiraahdo ma jiro oo inta ka maqan waa la ogyahay Soomaali hay isu timaado ha tashato dhulka hal la dhigo shirweyne Soomaaliyeed hal isugu yimaado waxay u baahan tahay gacanta in laga qabto ama beesha caalamka ha noqoto ama dadka intellectualka Soomaalida ha noqoto ama siyaasiyiinta ha noqdeen iyadoo aan gacan ka hadal iyo dhibaato kala midna la abuurin gobol Soomaaliyeed baan ku baaqaynaa in la isugu yimaado